Soomaaliland waxay jirtaa muddo ku dhow 29 sano oo intii ay ka go'day dawladda rejiimkeeda Maxamed Siyaad Barre waxaana xilligaasi Soomaaliland ka taaba qaaday nidaamyada iyo hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland walow qaarkood ay yihiin kuwa ka gaabin shaqooyinkii loogu talagalay warbixintana waxaan ku soo qaadan doonaa tayada daawooyinka dalka ay xilligan ka jirta Soomaaliland dawooyinku waxay ka soo galaan cirka badda dhulka shacbiga Soomaaliland waxay xilligan la ildareeyeen daawooyin tayadoodu dhacday ama dawo lagu qoray cudur hayninba taasi oo qofka ku abuuri karta xasaasiyad ama in dawada aanay waxba u tarin taasi oo ugu dambeyn sababi karta dhimasho dawo dhacday markaynu ka hadlayno waxa weeyaan dawada waqtigii la isticmaalayay saxda ahaa uu dhamaaday amba sidoo kale waqtigii ay shirkadda dawada sameysay damaanadeeda uu ka dhamaaday weeyaan marka waxa jira daawooyin dhacay oo dadku laakiin wali isticmaalaan laakiin waxa markasta jirta khatar caafimaad oo ay leeyihiin daawooyinka dhacay tusaale ahaan daawooyinka dhacay waxay dadka ku keenaan allergic reaction wax la yiraahdo aba qofka inay xasaasiyad oo kale sidoo kale daawooyinka loo yaqaano lidnoolayaashu iyagu waxay ku keenaan resistance amba qabatin in qofkii dawadii la qabsado sidoo kale waxay ku keenaan daawooyinka qaar qofkii in jidhkiisii oo kale ay dhaawacaan maadaama chemicalka ay ka samaysan yihiin yahay chemical jidhka bini'aadanka waqti kaliya la isticmaalay waxaan tusaale u soo qaadanaynaa daawooyinka qofka bini'aadanka ah waxyeelaya tusaale ahaan dawada tetracycline oo kale iyadu waxay keentaa xanuun loo yaqaano Fanconi syndrome oo ah xanuun ku dhaca dhinaca kaliyaha sidoo kale waxaynu soo qaadanaynaa dawooyinka ay tahay inaan la isticmaalin markay dhacaan dawada insulinta oo kale macaanka iyo qofka macaanka qaba la siiyo marka qofku haddii tusaale ahaan uu qaato dawo dhacday dalkii oo ka dhex qaato sidaas la mid ah qofkaasi dawadii antidote-keedii amba wixii lagaga hortagay sumowgaas aanay jirin qofku waxay ku keeni kartaa xaalad dhimasho xarun kasta oo ganacsi gaar ahaan dukaamada ku yaala magaalooyinka Soomaaliland waxay iibiyaan kiniinada ay ka mid yihiin paracetamol iyo aspirin waana labada kiniin ee ugu badan ee ay isticmaalaan bulshadu haddii xaddigooda la badsado sababa in lagu samoobo taasi oo natiijadoodu noqon karto dhimasho daawooyinka loo yaqaano pain reliefska amba si guud haddaynu soo qaadano NSAIDska la yiraahdo runtii waxay ku jiraan daawooyinka loogu isticmaalka badan yahay maanta Soomaaliland runtii waa daawooyinka ay dadka iska isticmaalaan amba OTC drugs ka nooca loo yaqaan weeyaan over counter drugs oo qofku iska iibsado bilaa waraaqad laakiin mushkiladda ay leeyihiin daawooyinkaasi waxa kamid ah in qofkii jidhkii oo kale ay keliyihii saameeyaan maadaama maadooyinka ku jira ay yihiin maadooyin chemical ah waxa laga yaabaa inay jidhkiisii qofka saameeyaan marka anagu waxaan markasta ku dhiirigelinaa dadka inay joojiyaan daawooyinka NSAIDska la yiraahdo qofka dhakhtarka aanu hay'adda dhawrista tayada ee Soomaaliland ayaa ka gaabiyay markoodii kaga aadanaa ka qayb qaadashada tayada daawooyinka dalka soo galaya marka laga reebo amaradeeda aan dhaafisanayn ruqsad kala noqoshada iyo celinta diyaaradaha keena daawooyinka dhacay dhawaan ayay ahayd markii madaarka Cigaal International Airport laga celiyay diyaarad sida daawooyin dhacay isla sanadkan aynu ku jirno ay hay'adda dhawrista tayadu ruqsadii kala noqotay shirkad keentay kiniino maran dhanka kale bulshada ayaa ku jahwareeray iyagoona xilligan inaawilaya qorshaha dawladda ee kaga aadan tayada daawooyinka dalka waxaan leenahay daawooyinka liibiya Soomaaliland aad u malaha lagama soo qaado wax library soo maraan ma jiro dadku iska isticmaalaan maadaama ay tahay waxna ganacsi inay dadku ka digtoonaad ba fiicnaala dawooyinka ay qaataan loo soo qoran dhakhtaraan dawooyinka wadanku waa qaar dhacay waa qaar aan library soo marin tayooyin aad u fiican wadanka waa dawooyin low hase yeeshee saraakiisha dawladda iyo ganacsatada ayaan aaminin dawooyinka dalka iyagoona u raadsada dalka dibadiisa Axmed Baashe Hargeysa